سو قال عاد كان لك بالله او جانجو سو عاد سو عاد اسكنا بعد waxaan ugu toosinayaa waa in la si waray keentay islaantan aan ka marqaami la ahay oo ka istiimi la ahay oo kadabkeeda ma gooyaaniyo maanta yaa mar alla markaan laama ruugo oo biyaha yar ka bado ee cunugii ila soo ag istaagtaa waatan dee waxaan sheegay hadda afkayga kama dhama way soo istaagtay maxaa dhibahoo jira yaa dhibka muxuu yahay ku haysta adiga kuma sheegin maxaa dhiboo ku haysta maya adiga ma ahane calaa kulli xaal anaa saaki isla sheekaysan maantoo dhan saan dhar u dhaqaayay waa daalay adeegaan doonayaa cunugan sii haay waa soo noqona haddaan soo noqona 5 daqiiqo wuu hurdaa weliba adeeg maxaa tidhi adeegaan doonayaa cunugan ii haaya ku dhaa maxaan kaloo ku dhihi lahaa aa dhegeyso adeegaaga ma aqaane war qof horta shaatigan toosi bar shaati maraan qofkan maraanka u eg sidiisa ay ahaadee hadda waa hagaajisan iska daa xishood fiiri nin weyn baa tahay cishadan ay saroostay cishadan ay saroostay ilaa maanta la joogo anigoo iska marqaamo afuufayo sigaarko dunida idilkeed inta taala darooga ku asqeeya naftayda ayaad raalli iiga ahayde markii aad umusheed ilma yeelatay maanta awaamiirta aad keentiyo iyo daad adeegga kowde ilmaha seexi halkaa orod doona adeegga imikadaana imoo saacada kuu qabana weliba wixii hore way dhammaadeen taydaa soconaysa waxaas adaa lagu dhahaa waa buuxaa kulli calaa xaal fiiri marka hore aabba ma aheen aad daroogada cabbayso cunaysa laakiin hadda aabbaa tahay wax badan inay ka tanaafusid adag ku fiican tahay cunugan hay calaa kulli xaal cunugi marraba dhibkaas war iga qaba cunugan adiga haddaan ku imaanay hadda weligii maa cunug qabta barwaakan adnaga aamus adigana waa waxan ma ceejiya wehelka aabo kaa yar istiima aamus waa ku baryaa laa ilaaha ila allah muxuu ahaa wux adeegga qabyuu iga yahay waata inkaar qabtadee cunuga shiyaanteed bal waxay doontaba ha noqotee islaantaa wax ka soo qaadan jira aan la hadlo adeegga halkaas iila soo istaag halow cambalay haa adeeggaaga kala go'akowde sax cunug yar reesaan masiibo meeshaan ay gubta camto qoorta ii gelisay haye mootaan soo qabsanaya albaabka iila sii joogso kowde mar alle markaasaa soo isla mootada inaan ku soo noqdaan raban fahanti waayahay albaabka iila soo istaago lacagtana haddaa kuu soo hormarinaya waay baad soomaa waa dhammaatay bes war caanaad cantuutiya naas kumaaye aamusniyo muxuu yaa qandaraaskii aan soo qaatay war baqaaraha ibarka qaaraaba jiri baqaarihina booliisa baqaar kastaa dhooban wax lay koofi madow qandaraaskii kale waa inaan raadsadaa marka meel dhawow ilaahay gaaga jecel gabaran qandaraaskayga labadii dhashina saacaddan xisaabay haayaan yaa yaqaani xisaabay ku jiraan saacaddan walaa caawa ku ilmilaadihin laari kale cunigiina harki doontiin
haye sidaad ogtiinba hawsha waa janta birjante boqolkiiba boqol waaye qofkii laba indha leh afaran ka raba ma garateen haddana waa batuuliyo waa howlgal qof fadhiisan kara ma leh hal gal hawsha waxaa waaye waa xilliga ugu xun waaye ee dembiyada la helo waa 12 iyo 20 howlgal wanaagsan batuuliyo taliya si degdeg ah iisoo gaar ma garat anaa ku imaanaya waryaa maxaa wadaa adiga cunugaan wataa cunugaa wadaa ha oo maxaa la jaraynaysaa haddaa cunug wata waxaan u siiya nas shaqad ku jirtaa nas hay ninkan muxuu ah socdaa waa 12 iyo barkii habeenimo aadna waa uga shigsannahay bal nala fiirtaa ariga waa gariiraya qaaro maad qabtaa adeer qaaro maad qabtaa taliya xaaladaada ka waran xaaladii fiicanta taliya nuuna ya nuuna cunuga haridi hooyada ma joogto kawaheedii qaadatay xaafadoodii feere waa xilli dhaxaa cunuga hooyadiisa aw waa asfurna taliya okay wax ku caawiyo dumar xaafadda qaraabada midna ma jiraan ma xaafadda ani kaligeela joogo taliya cunugaada dhashay Soomaa ha hooyadiisa asfurna xilliga inta wadaa marka cunugu waxaan u siiyay isbitaalka farmasiya waa taliya farmasiya waa raadinaya dhimala waa maasan tahay waa maasan tahay waxaan habeen har iyo habeen aan u taaganahay waa inaan bulshada caawinaa aaw talxiiganka saliga taliya aaw farmashiisaha lagu asaliga joogo booliska waana caawiya booliska hadda socodkaana aad caawiya fiican hadda iskaana walaado waa maasan tahay gariirkan badan jooji cunugana uu ka dhicin taliya waa kala doorkii hooyada ma ay farmashiis waa kan dictor cunuga noo fiiri bal xaaladiis dictor cunuga ii fiiri tartiib cunugu waa la ogaana wuxuu yahay tartiib soo dhaweey cunuga soo dhaweey hay dictor hata wax problem ma qabo wax malaria ma qabo wax oo qabo ma jiro gooreen ma qabo wanaagsan cunugu wax caafimaad qaba soo la hooyo la'aan leey tali mugu sheegay aniga hooyadiisa asfur hadda bixi kariya tali joog raali ah joog waa maasan tahay horta adeer waxba kurbaha isgelin cadow lama joogtid booliiska Soomaaliyeed la joogtaa waxaan u dhaarana waa inaan badbaadina naf iyo maalka bulshada ha iskurbeen anagaad nala joogtaa teeda kale aaw xalima daacad aaw bal askariyadan ha fiirsay cunuga hamar u dhiib bal hamar u dhiib cunuga hamar ما يعني ما حقه كريده ودي ما أنا ما جري عنقان سبويا وما سنتهي حليم دعت عنقاس بل واحد ريال فيري أو تلحقك سلقاو يس تليا مين مقشا نكان سلق هلا جيو قولك هلا قطور أو بيج هلا جليو بيرس سبحانه تار محكمة هلا قدر أدوي لا يراد ويا تليا أو على برشاوي بوليس ما غير واخد دعوة تليا عينك بوليس على برشاوي على برشاوي قاري كعيسو قبلنا هو فيري عليم دعت عليم waxaan ku sheegaa fasaxataa gurigaaga aad baawurkayga lagu qaadaa cunuga mas'uuliyadiisa lagu ogayaa insha Allah inta waalidkiisa laga helayo adaan ku ogaa wixii tasiilaad iyo caanihiisana waa kan waaya tali saasa noo balna baawurkayga hadda lagu qaasay waaya tali abdo baawurka kaxayso askariida awood مين مقشا واكو مقلا تلي فالدنبيات كدعاية انتان كوميك رنتاوي انتان كوميك وكبلارين وكبديين انت سيالو جوجين شغل وبالله التوفيق جوجي مين كودو واي الا حدنا هوش ودينا هرنا أبدوك إلهي مالك استوح لي أركي
yaab kala ka arkay alaab leel xad jiraan arki jirnii ilma nool oo la xadaya yimid aw shiikho yaab kaasaan haye waxa uma fiirinayo ilmahayga yarka ahaa aawo ya aawo ilmahayga ilmahayga war cunugayga waa la xaday cunugayga aawo meelahan u jooga meelahe ma aqaan meel aan galin iyo qol aan galin iyo musqul aan galin iyo jika aan galin lama arkay aawo cunugay ninkaas weydiinayna waa ku salaamay waa naxsanahay aad baa u naxsanahay waxaan sheegay ma garanayo waa qalqalsanahay adiga maxaa ku daaray ilmaha waxa iga maqan gabar yar oo caruura iga maqan oo aad u yar oo dhowr bilood jirto horta ninkaas aad ma isla jirtiin ninkaan ku dhacday ninkaan warkiisa iga dhaaf waa isla socotiin waa isla soconaa hadda haa horta cunug waa arki meeshaana nin oo la ordaya booliiska dhakabsi stationka la geeyay koodhe stationka ka jiri cabsanin gacanta lagu hayaa sabar stationka tag stationka waad maqashaa ka doon usayba kasoo urooysaa me subxaan allah haye sidaad ogtihiin shaqada waa habeen dembiyada xilliyada ay dhacaan waa 12 habeennimo iyo wixii ka dambeeyo saas waa ogtihiin amalena haddeertan waxaan qabannay ilmo yar oo la soo xaday sheekada intaas ma ku ekaanayso ka badan baan rabnaa inaan qabanno taliyeyna waa imaanayaa oo saldhigga waa uu soo dhow yahay marka waxaa waaye aan isfii jignaanno gabdhihii aawa maanta leylo raaw jir igtoolow taliya soo dhow lasta xaaladiina kooram taliya janta bajanta waaye kontaroolkii koowaad kii labaad kii saddexaad kii afraad all waxa waaye waa obi normal boqolkiiba waa normal shaqada meeshaas ka sii wada feejignaada cidnaha aaminina cidnaha dhibaateynina adinkoo waajibkiina gudanaya u naxariisa bulshada marxaba taliye amar waa qaadasho bulshadaan ka nimaana bulshadaana biri u noqonaynaa nafii maal alaashaana taliye waa runtaa wabilaahi tawfiiq meesha ka wada hoosha feejignaada soo daaya gabar yar baa iga maqan waxaa la igu soo sheegay saldhigga nafta ay xanuunayso bal wax yarsaan leh maama raalla isdeji maamo meeshaan waa saldhiggii goob sharci waaye isdeji bal see wax u jiraan soo daa odayaasha soo daa hay adigana maxaa ahayd tali islaantu ninkay qabtaana iska soo daaya odayaasha xaafadda waa soo daayba hay maama see wax u jiraan gabar yar baan suuqa ka aaday aabbaheedaan uga tegey suuqii markaan ka soo adeegtana waa waayay gabadh yartahay oday dariska cidaa odayaasha xaafadda ah baa wuxuu ii yidhi booliiskaa qabtay ilmo yar oo la wada saldhigaasaana la geeyey saasaan ku soo baxay okay saldhiggaa lakugu soo sheegay soma cunug saldhiggaana la iigu horta maama soo dhawow beer wax dhalaa tahay annaga cunug yar waan haynaa midku yahay laakiin ma naqaano kaagii ahaa iyo mid kale ahaa ma naqaano habeen saqdhaxaa nin asoo wada lagu qabtay laga shakiyey dhiyanayagooda markaan baarana isma lahaanin marka waa lagu qancinaa maadaama beer wax dhala tahay awtal xigan saldhig askariyadii cunugii hadda sida ugu dhaqsiya badan ha laygu keeno taliya marxaba isbatoore rood waxaa ii keentaa gaariga kaxayso gabadhi sheekh xuseen bal soo dhawow soo dhawaada assalaamu calaykum booliiska soomaaliyeedow wacalaykum salaam soo dhawow xogna waan kuu diray taliya xuseen waxaan u malaynayaa ballanna waa lahayd sax rabadna waan wadnaaye xuseenow dhegayso adduunkani sidiisa arrin aad weligeedba arkin baa subax noolba iskeed u soo ifbaxaysa tuug markay indhahaagu isgalaan dabadeed u soo dhaca gurigee kaa xadaaya alaabta ama bareer wax u qaato ay isbaaro u taallo ayaan arki jirnay eeggana bal u fiirso ilmihii baa la xadaa aadaabtii dhaqankeenniyo anshaxay waa kan hallaabay kuwa daroogada iibsha inna aanba dadkoodii u naxayn ummaddooda aafa ahaba jiroo oday magaciis la yidhaha ayaxuuma dhergaan uu abaabuliyoy uu agaasimiyaa baa jiree bal ogow
taas waa idin sheegnay waajibkana idinkaale tukala aanan baqaado gabadhan iyo odageeda ilmahaani yaree uu la soo orday tuugga ayagaa dhalay oo annagu waanu naqaan nacam in la siiya hadday iska tiraan ilmadan aad baan u rabnaa soo dhawow horta maadaama aad ka mid tahay nabadoonnada xaafadda sida dhowna noola shaqeeyo horta hal mid ku bishaaraysta damiinaan idinku siinaynaa khayr allah idin siiya khayr allah idin siiya teeda kale waxaan ku weydiinaa aniga howl baan kuu diray ninka qaabkiisa iyo suu ogyahay ma iga sheekay kartaa ayaxow ma dhirgaan waa oday gaaban oo faarsan oon gabanaynin waana il adag iyo askarta aad u diraysa feejignaan u dardaaran waa waajibaad taliya waa la yaqaan waa ninka adeega noo keena magaalada oo ya ninka adeega oo dhan noo keena waa ninkaan odagii cunug dhalo waa suu sheegaya hala qabto hala xiro wuxuu wadana halaga qaado oo maxaa galabsaday halaga qaado si dhaqbad waxaan la dagaaltamaynaa dhaqa xumadaan aab halaga qaado hal xiro qolkii nabadoon soo haye adeer taliya xuseenow annagu waxaan nahay odayaashii xaafadda odayaashii xaafaddaannu nahay arrintan cunuga maqanna aad baan ula soconnay ma garatay sax booliiskuna inuu shaqo wanaagsan ka hayo magaalada baryahan aad baan ula soconnay marka waxaannu idin leenahay odaygii islaantii dariskaannu ahayneen akhbaartooda maqlaynay ee ilmuhuu ka maqnaaya ayaamahanba orodka iyo oohintu iyo illintu ay ka idlaatay waa ilaah mahaddii mar haddaad u hesheenoo abshir weeye warkiinnuye in yaraan si iftiinshoon ogeysiiye dadweynaha horta booliskaa indhafiiqan oo axadkii wax afduubi iyo tuuggii soo agmarayaba dhaqso wuu arkayaa oo agshinkiisu akhriyaayoo ujeedkiisu fahmayaayoo sharcigu la abbaaray waa attention u gaara marka askarteenna booliiskii 24 saac iyo wakhtiga alla keenaba isgoosyada taagan ee u adeegi dadkoodii ammaankeenna adkeeyeyow ammaan baannu idiin sidnaa abaalkaad noo gasheenna waa mid uurka ku yaalloon abidkii la hilmaamaynin aad iyo aad baad u mahadsantihiin halkaa ka sii abbaara waannu idiin ducaynay guulaystaannu idin leenahay geesiyaasha geeya soomaaliyeed aad baad u mahadsantihiin waa mahadsantaha adiga laftirkaaga aawe askaridan diri cunugii aawe soo socaawe halii kan sida ugu dhaqsiyaa badan mar horaan diri aawe maxaa ku dhacwaa ka waa tali waa kuwa hore soo soco u keen taliyaha cunuga hala tuso hooyada cunugee sheeganaysa hala tuso hala qaneeyo hooyadan aawe akaale horta askaridan hala tus عني هوية تص الماء شغلة ستة كويدي هنا خليها أوتك خليها أوتك خليها تستك هوية خليها تستك من جاوا صوما بوليس هو قبرار كتوكي جنب قوت جيبي قعمها شريقة وقبرار كتوكي جنب قوت جيبي وحاوية هاي متقسمة قبرار كردابي
ayaa igdadayo dhaxanka badan gaatiin socod ku jira waxa uu yahay midkaas lamaha goobe ardaadiya wanaago nuuguura laylkii udcuu roobda ayaa gaydhadayo dhaxanka badan gaatiin socod ku jira afmeeristiisay ugamayaan dadweynuhu eewlagudahabe afmeeristiisay ugamayaan dadweynuhu nabadoon dhageyso dadkan damiinaan ku siinay eedeysanahan dacwadiisa taaran ka dirnay marka biri subax waxa loo baahan yahay adinka dhibanaha wax dhan in marqaati maxkamadda isku geeno biri subax 2 saac duu ilaa waaye tali xasan guuleysta booliiska dhamaan ولا أمني ولو يمت يا توبر لو سو حري عيدن عصب جبوتي لله مالك استعيدن توبر لجي بوليس كمانتا قعنتو كجرا أمانك ما شاء الله أمني وعلى سكو أركي محكرتها سنة كان محمد حي تابت يا ماذا على بكات تابلي على بود بود استاذ ما كل تابلي مركب الحين امني بكشيكينا هذه انا واعي تابتي ابني ها انتو يلا ما اوجد مايا كو حتى نينك ودنبي سو عنق سو حديا دب لا يري ستيشن هور لا جي هاي ابني عيانتان غعنتو كجرا غعنتا ولا كنترول يا با oo abniga gacan bir ah lagu qabtaa ilaa gacan bir ah oo ka kan waliba waa ka maqanta haye askarta ay dadkan kala aamin baxay indhaha isku gubay nin walba is ilaaliya attention oo ku jira ayaa amaanka sugay adiga iska dhaaf kuma taal arintaas amniga waa la sugaa aayadaada ka qaado waddankan indiraasaniya oo abnigiisa igu soo orod ma aha meel dadkeedii islaay wili armigi haysto isugaarsada waay 24 saac misaal la dilaa haye waa abaabul qosol haye 24 saac misaal la dilaa
waa abaabul qorshaysan askartan iyo dadkaana urka meelow ka jeeda weligood ma ogaanin amnigoo dhan booliiska usugaa ka mas-uula waxa eedda falaaya ee arbushaaya nidaamka inuu soo qabta waay haddii kalooysan ahayn waxay ilaalin karaan ooy og yihiin ma jiraana ummadda been ha u sheegin adiga horta aamus 40 sano ku dhowaad 40 sano ku dhowaad nimay isbaara u tiili oo aad u xirnaa awood qabiil iyo aake aaminsanaa hadalkiisa inta loogama baahno eedda aansan lahayn iyo aflagaadada jooji haddii kalooysan ahayn askartaan kugu waca waxa kaftaray ahayn adiga inta waxyooba askar baad aad maxaa dhacay waa kula kaftamaayay وعليكم السلام هاي في عتين هاي محل شلسي محل شقة هاي الشقة محل الشقة يا لو adeer waxaan sheegayna ma rabtaa inaa ogaad waxaan sheegayna ma rabtaa inaa ogaad baliisow nafya maal badbaadiyaa loo ballamaaya 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 ما تقان نيكا أرضي أنا أقان نيكاس أي حوالي يرى أي حو من الرجال شيء نيكا ميا أي حواكا أو قد راسي قاتل المهل صواحد هاي تروقضة أسكري يا ابن خطو أرنك واكو بدلي أنت أظن إيمان وحا أخريها أنا قابل الله يابي أمني قوائن كريوس عنو أركاي بوليس كأفلقاد وقيست إن الدير أولا هذا نيكاس أي حو أتلو إلى عليه نيكاس أفجر يجي إلى عليه بسم الله الرحمن الرحيم مدعوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها بارلمانكا قولها وسيرة قولها بارلمانكا دمان مرتي شرفت قدوميها قبلك أنا دوغا مقالة دمان مرتي شرفت كسو غيب كشي آدي آدان إذن كجماعة علينا waqtigoo kulul iyo sidaa noogu dul qaadateen sidii aan ugu talagalnay xafladda maanta arrimo yaryaroo cillada iyo xilligoo kulul awgiis dib aan u dhigannay insha allahu fantasiyo kale ayaan ku soo aadi doonnaa in riwaayadoo dhammaystiran li'annahu riwaayadda aad arkayseen ee aan hadda soo koobnay aaday nuxur weyn oo waqtiga dalku ku jiro ay ka turjumaysaa waxaan rabaa marka anigoo muxuu ahay mar labaad iyo mar saddexaad idinkaga mahad celinaya dulqaadkiinni iyo sidaad muxuu ahay u qiimayseen xafladda madaxweynuhu inta ugu horreeyo waxaan ku bilaabanaynaa khudbadihii waxaan rabaa inaan codbaahiyaha ku soo dhoweeyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed سرية جاز عبدي محمد حسن حجار تاني كسودو
hoos u dhigmo yir mister qaad بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها دولة فدرالكا الصومالية قدوميها بارلمانكا قولها وسيرها قولها حلدبانada agaasimayaasha guud sareeyayaasha meediyaha banda muusiko iyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ee ka soo qayb galay xafladda tan maanta loogu dabaaldegayo sanad guuradoodii 78aad iyo safiirada iyo diblomaasiyiinta ajnabiga ah ee nagala jooga dalka ee naga caawina iyo muxuu ahaa hooyooyinka oo batuulo iyo kooxdeedii nagala joogaan dhammaantiin weydin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne waxaa sharaf weyn noo ah inaad maanta nagala soo qayb gasho munaasabadan aadka u ballaaran ee muxuu ahaa aan ugu dabaaldegayno sanad guuradii 78aad ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu mas'uul ka yahay amniga gudaha ee dalka sidoo kalena wuxuu qayb libaax ka qaataa difaaca dalka iyo diinta iyo dhaqanka waxa xusid mudan inuu dalkan Soomaaliya sanadkii la soo dhaafay ciidamadu ay ka qayb qaateen ka howlgalista difaaca dalka iyagoo gudanaya waajibaadkooda ay u xil saaran yihiin mudane madaxweyne meesha oo kulul awgeed iyo waqtiga nagu gaaban awgiis waxqabadkii booliiska waxaa nagaga filan intii aanu documentariga ku daawanay oo aanu ka aragnay qaybihiisa kala duwan haddaanse dib wax yar ugu noqdo waxaanu wax ka qabanay hoggaanka CID-da hoggaanka gaadiidka hoggaanka nabadgelyada wadooyinka hoggaanka isgaarsiinta iyo hoggaanka ciidanka oo aanu dib habayn ku samaynay waxaanu dhawaan abuurnay hoggaan la yiraahdo hoggaanta diinta iyo dhaqanka marka ay noo muuqatay inay dalka ay ku soo badanayaan mukhaadaraad si loo daryeelo dhalinyaradeenna aan uga badbaadino dhibaatooyinka ay u geysanayaan waxaanu horay marinay oo tababarro siinay ciidanka daraawiishta ciidanka barmadka iyo ciidamada gaarka ah ee howlgallada sameeya oo isugu jira ciidamada haramcad checkpointska ciidamada guurguura RRT Chad ABTF iyo CTID ciidamadaas oo dhan waa ciidamo loogu talagalay inay ka howlgalaan oo la dagaalamaan wixii operation ee lagu qaadayo dalka gudihiisa dawlad goboleedyadana waa jiraan caasimadana waa joogaan mudane madaxweyne ciidanka booliiska oo gacan ka helaya shacabka Soomaaliyeed sanadkan waxa uu suura gashay inay fuliyaan howlgallo badan oo lagu bartilmaameysanayo kooxda nabadiidka ah iyo kooxaha burcadka ah kuwaasoo lagu soo qabtay 154 eedaysane argagixisanimo lagu soo qabtay 391 burcadnimo lagu soo qabtay oo dhammaantood la geeyay maxkamadaha awoodda ku leh loo gudbiyey sanadkan ciidanka booliisku wuxuu ku guuleystay inuu ciidan daraawiisha geeyo goobaha laga xoreeyay nabadiidka ee deegaanada Sabiib Caanoole Jannaale Shalaambood si ay uga qayb qaataan nabadgelyada muxuu ahaa lagu xasilinayo dalka mudane madaxweyne tirakoobka faldambiyeedka dhacay 2000 ilaa 2001 ee halka sano la soo dhaafay waxa ka dhacay falal lid ku ah amniga booliiskuna wuxuu ku sameeyay baaris iyo qoto dheer falalka guud ahaan booliisku soo ururiyay waxa la diiwaan geliyay 15694 faldambiyeed
oo booliisku diiwaan geliyey tirada dacwadda maxkamadaha la geeyey waa 1403 tirada maxkamadda sii daysayna waa 1913 mudane madaxweyne sanadkan ciidanka nabadgelyada wadooyinku waxay diiwaan geliyeen 162 shil dhimashada ay sababtay shilalkaas dhacay waxay gaarayaan 86 dhimasho ah dhaawacuna wuxuu gaarayaa 470 522 ay tahay dhaawac fudud ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu mas'uul ka yahay ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha waddanka hoggaanka ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha ayaa mas'uul ka ah booliiska si toos ah ula shaqeeya wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe si ay u daryeelaan una ilaaliyaan kuna hubsadaan khasnadda dawladda dhaqaalaha dalka ka soo xirooday mudane madaxweyne booliisku wuxuu mas'uul ka yahay amniga doorashooyinka dalka ka dhacaya maadaama mas'uuliyadiisu ay tahay dalka gudihiisa inay ka shaqeeyaan 12 xarumood oo ku taala dalka ayaa loo aasteeyey inay doorasho ka dhacdo 12kaas xarumood booliisku isagoo gudanaya waajibaadkiisa amniga wuxuu soo kormeeray oo eegay dhammaantood si inay ku habboon yihiin xagga amniga in doorasho ka dhici karto iyo in kale waxayna si nabadgelyo ah ku guulaysteen inuu noogu dhammaado doorashooyinkii sanadka oo ka dhacay dalka oo dhan waxaana hadda bartamaha uga jirnaa doorashooyinka baarlamaanka oo isaguna hadda meel fiican marayo mudane madaxweyne xagga tababarada ciidanka booliiska waxaa u socda dib u habayn iyo dib u tayeyn si xoogan waxaana xoojinay tababarada la siinayo qaybaha kala duwan ee ciidanka si sare loogu qaado tayada iyo xirfadda aqooneed ee xubnaha ciidanka booliiska sanadkan waxa aan qabanay tababaro kala duwan oo kor loogu qaadayo aqoonta xirfadda shaqo ee xubnaha booliiska tirakoobkaas oo ka dhacay gudaha tababaradaas oo ka dhacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaa ka faa'iidaystay 1229 saraakiil iyo saraakiil xigeena waxaan ku guulaysanay markii ugu horreysay inaannu qorno horin gabdha ah kuwaasoo tababar gaara ku soo qaatay dalka Turkiga waxayna waxa kale oo ay tababar waxbarasho heerka labaad ee master degree-ga loo yaqaano u dirnay dalka Turkiga 20 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliyeed markii ay dhameeyeen bachelorka mudan madaxweyne ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddii aanu isnaano waxqabadkii sanadka la soo dhaafay hadday tahay dhismo hadday tahay muxuu ahaa tababaro hadday tahay muxuu ahaa kobcin hadday tahay qalabayn waxaan u malaynayaa waqtiga ayaan noo masaamahaynin marka waxaan jeclaan lahaa inaan ku soo koobo hadda xiriirka caalamka aan la samaynay oo aanu ka mid noqonnay ibko oo loo yaqaano booliiska goboleedka bariga Afrika booliiska Afrika iyo booliiska caalamka adduunka ee Interpol loo yaqaano oo aanu hawlada ugu galay iskana bixinay membership fee ama lacagtiina la ku lahaa oo 1 milyan oo euro kor u dhaafaysa annagoo la kaashanayna dawladaha aanu saaxiibka nahay mudane madaxweyne ciidanka booliiska waxa sanadka 2021 iyo 2024 afartaa sano waxaanu u dejinnay istaraatiijiyad qorshe horumareed ee ciidanka booliiska oo loo qaybiyay afartaa sano iyadoo sanad walba dib loo eegayo labadaas dokumenti bay gelayaan waxayna ku kala qoran yihiin midna waxa weeye horumarinta ciidanka ama development ama capacity building waxa la yiraaho kuwa kalena waa howlgalka oo 4 sano qorshaheeda noo yaala oo ay diyaariyeen ciidan saraakiila oo dhalinyaro ah oo wax soo bartay jaamacadaha ka soo baxay madaxweyne anigoo halka ku soo koobi karaynin haddaan isiraaho waxqabadka ciidanka waqtigu nooma saamahayn waxaan rabaa inaan bogaadin iyo u soo jeediyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee nagala qayb gashay
ciidanka daryeelkiisa ee nala shaqaysay waxaanu rabnaa inaannu sheegno labadii saneen ciidanka joogay iyo bilihii ku xigay in ciidanka aysan muxuu ahaa hal bil keliya mushaar la'aanayan ahayn ee intaa mushaarkoodii iyo gunnooyinkoodii ay qaadanayeen taasna waxaanu uga mahadcelinaynaa madaxweynaha prime ministerka iyo xukuumadda oo dhan oo xil weyn iska saaray inay muxuu ahaa booliiska taakuleeyaan taasaana muxuu ahaa na gaarsiisay halkaa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo ama aan u duceeyo ama aan qalbiga ku hayo muddadaas waxaa ciidanka booliiska ka dhintay saraakiil qiimo leh saraakiil xigeenno dabley iyo ciidan kale oo u dhintay liajliga amniga in iyagoo sugaaya waxaan jeclaan lahaa iyaga iyo xaasaskoodii inaan tacsi halka uga diro waxay ku dhinteen geesinimo welina waannu xusuusannahay carruurtoodana waa daryeelnaa intaaseen muxuu ahaa ay naga mudan yihiin iyagana inaannu u ducayno waxaan hadda ku soo dhowaynayaa mikrofoonka bariis ay ag taagan oo la dhaqso waxaan ku soo dhowaynayaa wasiirka amniga wasiir soo dhowow بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد فرماجو قدوميها قولها شعبك حبناها قولها وزير ده حبناها لوضع قولها برلوانك فدرالك الصومالية تليها عيدن كبوليس كالصومالية إيا تليها كحية نديسة سفير ده إيو صاحبة ده كالي كسعودة dowladaha aan saaxiibada nahay duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka iyo kusimaha taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka dhammaan marti sharafta kale waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan u hambalyaynayaa dhammaan sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeennada alifleyda iyo dableyda ciidanka booliiska soomaaliyeed xaasaskooda iyo carruurtooda runtii maanta waa maalin ku weyn guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan booliiska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ay u dabaaldegayaan ama ay xusayaan 78 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ah ciidanka ugu faca weyn ama ugu aan dhihi karno waa hooyada ciidanka soomaaliyeed guud ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxa uu noo soo bandhigay maanta waxqabad runtii aad u ballaaran waa u mahad celinayaa waana bogaadinayaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenadiisaba taliya xijaar dadku waxa ay moodaan kolka laga hadlo ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka jooga keliyata saldhigyada iyo waddooyinka laakiin kolkii dad badan ay daawadeen presentationka ama bandhigii halkan lagu sameeyey waxay gacmaha ku hayaan howlo qaran oo aad u baaxad leh markii la isku soo duuduubana ka turjumaya u adeegidda shacabka soomaaliyeed boolis marka laga hadlaayo sidiisaba waa shakhsiyaad laga soo xulay shacabka dhexdiisa loo tababaray loona carbiyey u adeegidda shacabka soomaaliyeed dibna loogu soo celiyey si ay ugu adeegaan waana ku ammaanayaa waana ku bogaadinayaa waxaana markhaati ka wada nahay maanta inay hayaan shaqadii laga rabay ama laga filaya shacabka soomaaliyeed inay u qabtaan maanta waa maalin ay tahay inaan hambalyo iyo tahniyad iyo bogaadin uun u soo jeedino booliiska soomaaliyeed laakiin haddana sidaasoo ay tahay
munaasabadahan oo kale marka la isu yimaado waxaan laga maarmayn in anoo huba inay ka tagsan yihiin igana fahamsan yihiin waajibaadka qaran ee horyaal haddana wuxuun in laga xasuusiyo waxyaabaha aan jeclaan lahaa inaan hoosta ka xariiqo waxaa kow ka ah waa isxasuusinaynaa mooye waan hubaa inay u taagan yihiin herya maalin oo qorraxda ugu dhacayso roobka ugu da'ayo aynan u hoyan aynan u horgelin waa ka hortagga kooxda nabaddiidka ah ee mar walbo ee liddi ku ah danaha shacabka soomaaliyeed taa marka laga yimaado booliska wuxuu kaashadaa ama kaalmaystaa shacabka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan waxaa dhacday ama maalmahan magaalada mararka qaar ka dhacday in dhacdooyin ay dhacaan kaga imaanaya ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan shacabka soomaaliyeed waa ku ammaanaya waana ku bogaadinaya dhacdooyinkii dhacay in ay ciidanka booliska oo kaashanaya hay-adaha amnigu ay tallaabo ka qaadeen horgeeyeen hay-adaha garsoorka laakiin waxaan runtii aanan marna hilmaami karin falcelinadii iyo fariimihii runtii xambaarsanaa yacni xaqiiqada ee iga soo gaaraya shacabka soomaaliyeed oo aan dareemi karo inay madaxda iga sarraysana sidaas si lamida u soo gaarayeen markii dhacdooyinkaas oo kale ay dhaceen qof loo carbiyey inuu shacabka soomaaliyeed difaaco qorigii lagu soo iibiyey canshuurta iyo rasaastii lagu soo iibiyey inuu ku dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed marna wax la aqbali kara ma ahan dhacdooyinkaas oo kale hadday dhacaan madaxda iga sarrayso qofka ugu horreeya soo wacaa noqona anuguna waxaan soo wacaa xijaarne sidoo kale iyo saraakiisha kaleoo la midka ah waa ku mahadsan yihiin siday u maareeyeen laakiin waxaan rajaynaynaa in la maareeyo inayaan dhicinba oo laga fursado inay dhacdaan qodobka saddexaad oo aan rabo inaan xuso waxay tahay waxaan la wada soconnaa sida taliya xijaar uu xusay inay waddanka guud ahaan gaar ahaan caasimadda ku soo bateen maalmihii lasoo dhaafay waxyaabaha maanka dooriya isticmaalkooda waxyaabahaasi waa waxyaabaha kalifa ama sababo ugu badan faldembiyeedyada aadka u ballaaran ee dalka ka dhacaya hadday noqon lahaayeen dilka iyo dhammaan xadgudubyada kale la midka ah waxaan hubaa inaad qorshe ka leedihiin aragtina ka leedihiin waan idinku bogaadinayaa in aad gacan bira ku qabataan cid alaaliya cidday ku howlan ama ka shaqaynaysa arrimahaas dabcan qodobka afaraad ee aan kusoo gebangabaynaya waxay tahay maadaama dalku ku jiro marxalad doorasho ah sida taliya xijaar uu sheegay tiimka sugaya amniga doorashooyinka asiga ayaa hormuud u ah asiga ayaa tiim liader u ah waxaan rajaynayaa in ayadana sidaasi la mid ah intii soo dhacday doorasho socotay kama dhicin falal tabasho amni ah oo la xidhiidha amni darro waxaan rajaynayaa allah subxaana wa tacaalaana uga baryayaa tiimkaas u xil saaran amniga doorashooyinka oo taliya xijaar uu hormuudka u yahay in inta hartana ilaahay u fududeeyo intaas kadib annagoo tixgelinayna wakhtiga oo aad u yar iyo hoolkoo xooga aad yara moodo inuu kulul yahay iyo oggolaada dad badan oo mudan oo inay hadlaan ayaa goobta fadhiya laakiin waa anoo ku hadlaya bahda maanta munaasabaddan iyo oggolaada inaan ku soo dhoweeyo madaxweynaha waa uu cudur daaranaynaa intuu gaari waayeen waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waayahay waa fariina ay soo gaarta kale oo dhahaysa waxaa lagu soo dhoweynayaa guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiye soo dhowo بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينها جمهورية فيدرالك صوماليا مدن محمد عبد الله محمد فرماجو وزير رضا وزير دولياشا وزير كحجيندا تليها عيدن كبوليسكا سراكيشا سراكيل حجيندا دبليدا ضمان انت كسوق بقشي حفلة تان سند غوردا تضباطا إسديدات عيدن كبوليسكا صوماليات marka hore waxaan u hambaliyeynayaa ciidanka booliska Soomaaliyeed sanad guuradoodii 78aad ee ka soo wareegtay asaaskii ciidanka booliska Soomaaliyeed dhammaan ciidanka booliska iyo eheladooda waxaan leeyahay waxaad mudan tihiin in la idin hambaliyeeyo waxaan idin rajaynaynaa horumar iyo barwaaqo iyo sanadkan sanadkiisa inaad ku gaartaan muddadaas dheer ee 78 sano ah waddanka wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo loo baahnaa amni ahaan in la maareeyo waxaan aaminsanahay ciidanka booliska Soomaaliyeed muddadaasi wuxuu ku guuleystay inta karaankiisa inuu badbaadiyo qaranka Soomaaliyeed sugidda amniga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ilaalinta nolosha iyo hantida amniga iyo nabadgelyada muwaadinka Soomaaliyeed iyo dadka kale oo degan jamhuuriyadda federaalka dhaqangelinta dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taala dhaqangelinta heshiisyada caalamiga ah ee Soomaaliya qaybta ay ka tahay waxay ka mid yihiin waajibaadka ciidanka booliska Soomaaliyeed haddii aan la dhaqangelin shuruucda dalka lama badbaadin karo dadka iyo dalkaba dhaqangelinta dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka iyo shuruucda kale oo caalamiga waxay la mid tahay adoo badbaadiyay dalka waxaan aaminsanahay inay tahay طريقة lagu badbaadin karo dadka inay tahay shuruucda in la dhaqan geliyo waxaan rabaa in kelmad yar aan ka yiraahdo dhinaca doorashooyinka waxaan filayaa waxaan ku jirnaa doorashooyinkii waxaa laga soo gudbay oo la doortay aqalkii sare ee baarlamaanka oo xubnihiisa ay ka kooban yihiin 54 senator bishii November oo kowdeedii aan soo dhaafnay waxaa la doortay xildhibaankii ugu horeeyay oo golaha shacabka maanta waxaan joognaa 25kii December tirada guud ee golaha shacabka oo la doortay waa 24 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka taas oo ka dhigaysa tirada guud markaa fiirisaan 275 xildhibaan boqolkiiba 9 wax ka yar waxaan aaminsanahay 55 maalmood 30 maalmood oo bishii November iyo 25 maalmood oo bisha December marka la isku daro oo 55 maalmood haddii lagu doortay 24 xildhibaan oo golaha shacabka baarlamaanka ka mid ah maxaan filan karnaa tirada hartay ay tahay 251 xildhibaan doorashadoo la dedejiya waxay muhiim u tahay amniga dalka waxay muhiim u tahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxay muhiim u tahay nolosha guud ee shacabka Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinaynaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubinta ka dawladda federaalka oo mas'uuliyadda doorashada dadban qaatay inay waddankan ka badbaadiyaan wixii hadda ka dambeeya in dib u dhac uu ku yimaado doorashada sida aad la socotaan
sida aad la socotaan 26 bishii 9aad 2011 baarlamaanka wuxuu ansixiyay heshiiskii siyaasadeed ee 17 September heshiiskaas haddaad akhriseen waxaa ku qoran heshiiska siyaasadeed ee jihaynta doorashooyinka ama doorashada baarlamaanka federaalka ee 2020 ayaa ku qoran heshiiska siyaasadeed oo baarlamaanku uu ansixiyay oo madaxweynaha uu ku soo saaray sharci number 30 oo uu ku ogolaaday in heshiiska siyaasadeed uu noqdo heshiis lagu aado doorashada waxaa ku qornayd inuu ku eg yahay 2020 waxaan rabnaa inay ku buraaragaan dadka u xilsaaran doorashada waxaan aaminsanahay muddada hartay bishan December ka hartay aaday muhiim u tahay waxaan aaminsanahay sharciga waa la socoteen annaga markaa akhrisaan sharciga 17 September qodobka 3aad wuxuu ka hadlayaa ilaalinta firaaq dastuuriya iyo waddanka uu ka dhaco taa markaa sababi karta in hay'adihii dastuuriga qaar ka mid ah ay dumaan waddan jira oo calankiisii United Nationska uu suran yahay in hay'adihiisii dastuuriga ahaa oo siyaadada waddanka hayay ayadoon kuwa kala bedelin meesha ay ka baxaan waa ka taxdirnay waxaan soo saarnay sharcigii lagu ilaalin lahaa waxaana la bedelay hore loo bedelay qodob ka mid ah qodobada dastuurka sharci number 30 wuu sii jiri doonaa ilaa baarlamaanka 11aad laga dhaariyo aadan ugu faraxsanahay in ilaa hadda ilaahay uu nagu badbaadiyey dadaalka annaga keliya ma ahana ilaah uuna badbaadiyey aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan soo dhawaynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها قولها شعبك حبناها قولها وزير هذا حلبانا لبدا أقل قدوميها قول كبنادر أهنا دوغا مقالة تلياشا عيد مدى قلب كسيدة سرياشا saraakiisha saraakiil xigeednada alfleyda dableyda gudoomiyaha haweenka qaranka oo halkan nagala joogta kooxda fankay suugaanta ay hegan kooxda bambeyda bahda saxaafadda marti sharafta kale oo nagala soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad leh oo noo suurtageliyey maanta inaan munaasabadan quruxda badan aan ka soo wada qayb galno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo taliyaha ciidanka booliiska iyo howlwadeennadiisa ka shaqeeyey munaasabadan qurxoon iyo waxqabadka iyo riboorka ayna siiyeen oo faahfaahsan oo ku saabsan labadii sano ugu dambaysay la soo dhaafay waxqabadkii iyo guushii ciidamada booliiska Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo
aan u diro hambalyo meel kasta ay joogaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed khaasatan sarreeyaasha saraakiisha saraakiil xigeenada dableyda iyo qoysaskooda iyo carruurtoodaba meel kasta ay joogaan munaasabadan maanta aan u dabaaldegayno oo 78 guuradii ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 waa idin dhegaysanay qof walba oo halkan ka hadlay wuxuu sheegay wixii loo baahnaa haddii noqoto waxqabad haddii noqoto dhaliilo loo baahan yahay in wax laga qabto anigu waxaan rabaa inaan taabto booliiska Soomaaliyeed inay ahaayeen hooyadii dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka iyo kala dambeynta waa institutionkii waa hay'adii ugu horeysay oo la aasaasay waxbay ku sheegaysaa marka macnaheeda waxa weeye waxaan loo aasaasin 78 sano ka hor ciidamada dhulka ciidamada cirka iyo ciidamada badda iyo hay'adaha kale ee dawladda waxaa loo aasaasay inay yihiin aasaaska dhabta ah ee dawladnimada Soomaaliya loo diyaarinayay xorriyadeeda waxa weeye ummad walbaba oo adduunka jirta markii ay heshiis gaaraan inay samaystaan maamul hadduu ahaado meesha ugu hooseysa ee degmo iyo meesha ugu sarreysa oo la dhisaayo dawladnimo ama qarannimo la dhisaayo waxaa muhiim ah oo laga hadlaa sidii loo sugi lahaa ammaanka ama waxa la yidhaahdo law and order waxaa suga amniga law and orderka sugana waxaa ugu horeeya booliiska macnaheedu waxa weeye meeshaas waa meesha dawladnimadu ay ka bilaabato dawladnimada iyo maamulka iyo waxa la yidhaahdo authority meeshaas ay ka bilaabataa macnaheedu waxa weeye law and orderku ama sugidda amnigu waxa weeye waa meesha lagu ilaaliyo kala dambeynta lagu ilaaliyo nidaamka iyo sharciga lagu ilaaliyo kadib baa waxa la dhisaa marka hay'adihii loo baahnaa taas waxay muujinaysaa marka booliisku inay yihiin udub dhexaadka hooyada dawladnimada aan haysanno iyo dawlad kastoo adduunka ka jirta waxaa xigi kara marka wixii kabaayay amniga ama sugidda amniga wixii kabaayay yaa ku xiga oo kow ay ka tahay maxkamadaha sharciga waxaa ku xiga markii maxkamadihii iyo booliiskii la dhiso oo la diyaariyo waxay u baahan yihiin resource dhaqaale u baahan yihiin dhaqaalahaasi dadkii heshiiyey ummaddii heshiisay oo ku heshiisay inay maamul samaystaan yaa waxaa khasab ah marka inay samaystaan maamul iyo canshuur aruurin meeshaas waxaa ka bilaabanaya in lagu bixiyo mushaharaadkii marka waxa weeye mushaharaadkaasi oo ah daruuri iyo wax alla wixii hawsha lagu qabanayay dhismaha dawladda dhismanaysa marka ama maamulku dhismanaya waxa weeye markii adeega dawladda laga rabay la dhammaystiro adeega waxaa ka mid ah ciidanka xoogga oo qaybihiisa kala duwana hadduu yahay badda cirka iyo dhulka waxaa ka mid ah hay-adihii caafimaadka waxaa ka mid ah hay-adihii biyaha bulshada siinaysay waxaa ka mid ah korontada waxaa ka mid ah jidadka la dhisaayo ogaada waxay ka soo bilowdeen amniga ka soo bilowdeen in amniga la dhiso marka hore oo la sugo amniga oo amnigaasna uu u yahay garab u yahay ama guidance u yahay ciidamada booliiska Soomaaliyeed haddii aysan jirin marka maxkamad ma dhismayso oo qofkii dambiilaha ahaa la geeyo
oo ummadda dhiba ama labada qof qofka dhibanaha iyo qofka dhibka sameeya ama qofka dhibanaha ama qofka dhibka lagu sameeyo u xaqsoora oo cadaalad u sameeya la heli maayo meeshaas weeye meesha loo baahan yahay inaan fahmno booliisku inay yihiin saldhigii aasaaskii dowladnimo ama dowladnimadaan haysanno waxa weeye marka waxa weeye waa ciidan ka mid ah bulshada oo ka yimid bulshada u adeegaya bulshada u cadaalad falaya bulshada intaas kaliya maaha haddaad maqashaan dowlad wanaag waxa weeye aasaas waxa u ah booliis iyadana hadday dowladdu xun tahay macnaheeda booliiskaana shaqaynin hadday dowladdu wanaagsan tahayna ama aad maqashaan dowlad wanaagna waxa weeye booliiska habeen har iyo habeen taagan oo shaqadii dastuuriga ahayd ama waajibaadkoodii gudanaya waxaan ka soo qaadaynaa meesha ugu hooseysaan ka soo qaadna saldhigyada booliiska ama stationska ay joogaan oo xaafadaha ku yaalla marka loo yimaado oo dhibbanno u yimaado waxaa laga rabaa iyagu inay soo qabtaan kii dhibka sameeyey oo si sax ah ay report u soo qoraan oo ay ugu soo qoraan CID-da fiiriya meeshay ka bilaabatay cadaaladda meesha ka bilaabatay cadaaladda maaha maxkamadahu maaha meesha ka bilowdaan iyo garsoorayaashu waxay ka bilaabataa cadaaladda taliyaha jooga saldhigyada booliiska markii qof dhiban oo cabanaya oo xaqdarro lagu sameeyey ee u yimaadaan ee intay ka qoraan wax alla wixii dhib ah lagu sameeyey oo kii dhibka sameeyey soo qabtaan ee u soo gudbiyaan CID-da oo CID-dana uu baaro in saldhigan waxa uu hayo macluumaadku hayo inay sax tahay oo kan CID-dana uu u shaqeynayo si hufan oo musuqmaasuq ka fog kadibna faylkii oo dhammaystiran uu u soo gudbiyo xeer ilaaliyahana keeskiisa uu ku dhisto kayskii ka soo bilowday taliyaha saldhig ka soo bilowday markaas weeye marka maxkamaddu iyo garsoorayaashu ay ka gaari karaan go'aan saxa marka oo cadaalada laakiin haddii kaysku uu hoos ka soo bololo oo isagoo dhintay uu yimaado macnaheedu waxa weeye cadaalad darra dhacday cadaalad darra hadday dhacdayna bulshada aan matalayno ama bulshada aad u shaqaysaanna waa kala fogaanaysaan maxaa yeelay bulshada iyo dowladda waxaa ka dhexeeya xiriirkooda waxa weeye xiriirka ku dhisan cadaalad markaad ka shaqaysaan aad hawshaas saas waajibaadkiina u gudataan waxaad ku soo dhowayseen bulshadii dowladdoodii aad ku soo dhowayseen waa taas meeshay ka bilaabatay dowlad wanaagga marka waxaa soo haray booliisku waxay joogaan meel walbay joogaan qaybaha canshuurahay joogaan jidadkay taagan yihiin taraafika weeye meel walbay joogaan meel alla meeshay joogaan hadday ay uga shaqeeyaan si hufan macnaheedu waxa weeye oo qofka musuqmaasuqa wada ay qabtaan oo ay u soo gudbiyaan hay-adaha shaqada ku leh shaqadaas macnaheedu waxa weeye dowladdaasi waa dowlad wanaagsan oo si wanaagsan u shaqaynaysa wey laakiin haddii booliiskii aysan saas u shaqaynin sidaas hufanaysan u shaqaynin waxaa leeyahay dowladdan waa dowlad xun meeshaas waxaa imaanaysa marka meesha shacabka Soomaaliyeed iyo dowladoodu ama ay ku isugu dhawaanayaan ama ay ku kala fogaanayaan haddaba waxaan rajaynayaa inaad bacdama aad tihiin aasaaskii amniga ilaalinta amniga iyo law and order-ka inaad shacabka u adeegtaan oo si hufan oo wanaagsan oo raxmad leh oo naxariis leh oo walaaltinimo leh aad ugu adeegtaan maxaa yeelay iyagaa bixiya mushaharkaaga waa taxpayers wey canshuurta iyagaa bixiya mushaharka aad ku qaadato
markaas waxaa imaanaysa dadweynahaasi inay jeclaadaan dowladdooda oo ay la shaqeeyaan amniga kala shaqeeyaan ay ilaaliyaan shuruucda ay canshuurta bixiyaan haddii canshuurta la bixiyana dee mushaharkaaga waxaa weeye dowlad hufan oo wanaagsan weeye way kordhinaysaa mushaharkaaga maxaa yeelay dadku waa qanacsan yihiin oo daryeelkoodii iyo adeegoodii waa la fuliyey waxaa intaas ugu sii muhiimsan dadweynahaas waxay noqonayaan muwaadiniin waddaniyiin ah oo maxaan ku raahdaa ku qanacsan dowladdooda oo la yidhaahdo good citizen markaas weeye meesha siyaasaddu la doonayo dadka shacabka ah inay uga xirmaan bacdama aan nahay dowlad iyo dal dimuqraadi ah aan nahay oo doorasho lagu yimid waa jeclaan lahaa shacabkaas Soomaaliyeed dadweynaha Soomaaliyeed iyagu inay cod ka lahaadaan oo ay doortaan laakiin duruufo dhacay awgood dib ugu noqon mayno waxaan haysanaa waxa la yiraahdo doorasho dadban doorashadaas dadban oo laga hadlay waxaan aaminsanahay inta badan waa in la sheego wax wanaagsan waxaan aaminsanahay dowlad goboleedyada madaxdooda madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha inay shaqo wanaagsan qabteen oo ay dadaaleen duruufo waa iska jiraan ama dhaqaale ama duruufo kale oo farsamo waa iska jiri karaan laakiin waxa weeye doorasho dadban marka la yiri iyadaaba muran ku dhisanba waaba doorasho dadban marka in la isqanciyo oo la wada shaqeeyo iyay wax noogu hagaagi karaan waa ku faraxsanahay inay booliiska Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin hawshaas ilaalinteeda waxaa la rabaa si wanaagsan inay u ilaaliyaan oo uga warqabaan oo ugu cadaalad falaan waa soo dhawaynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay heshiiskii September 17 yuu ka hadlay heshiiskii September 17 waxa weeye waa sharci meel buu yaalaa anuguna waa saxiixay waxaan rajaynayaa inaan waxba laga bedelin oo hore loogu socdo waxyaabihii yararka ahaa oo la isku qabtana si de xilkasnimo iyo wanaag iyo walaaltinimo iyo wada shaqeyn iyo ku jirto in looga wada hadlo laakiin principle-ka uu ku dhisan yahay asaas ku dhisan yahay September 17 waa heshiis aad looga fakiray aad looga shaqeeyay in la iska ilaaliyo in wax laga bedelo ugu dambeyntii waxaa noo soo baxay xildhibaano nambarkooda uu sheegay gudoomiyaha waxaan rajaynaynaa insha Allah in la dardargeliyo inta harsan oo madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay focus gareeyaan ay diirad saaraan qabsoomidda doorashada oo aan dhinacna looga leexan maxaa yeelay hawsha noo taalla oo kaliya waa doorasho waxana laga sugaayo ummadda Soomaaliyeed naga sugayso waa doorasho waxa loo baahan yahay in doorashadaas noqoto doorasho hufan doorasho cadaalad ku dhisan doorasho lagu qanacsan yahay qof walba oo muwaadin Soomaaliyeedna uu tartami karo insha Allahna waxaan rajaynaynaa inay si dhaqsi ah ay noogu dhamaato wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم وحان هلكان كسوينا قاشان لسر اكس قاشان لسر فرحان تليها قيبتا قود تليها هقان كإسكارسين تكورن اكس كورنيل عبد الكريم تليها أكاديمية ذا اكس كورنيل مختار قابو waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iga aqbalay
soo jeedintii aan soo jeediyey in saddexda sarkaal ee hadda loo yeeray ee na hor taagan dallacaadaan u soo codsaday oo ahayd dallacaad abaalmarineed inuu iga aqbalay oo ay maanta dallaceen muxuu ahaa hoggaanka isgaarsiinta taliyaheeda taliyaha akadeemiyada jenaraal daa'uud akadeemiyada sorry muxuu ahaa kaahiye iyo muxuu ahaa taliyaha ciidanka qaybta guud isla markaana ah taliyaha ciidanka haramcad arrintani arrin sahlan ma ahayn arrin waxqabad iyo xisaab ku timi bay ahayd mas-uuliyadda loo dhiibay inkastoo ciidan badan oo ciidanka booliiska ka mid ah fadhiyada madaxa bannaan hoggaamada iyo qaybaha kala duwan hawsha aanu qabannay ee hadda laga sheekaynayay dhammaan dable ilaa taliyaha ciidanka ugu sarreeya aanu wada qabannay haddana haddii la tartamo marna ma aha muxuu ahaa laisma soo gaaro saddexdaas sarkaal waxay noo galeen furanti laynka ama kuwii noogu dheereeyey hawsha loo idmaday wax ka qabadkeeda anigana sharaf bay ii tahay madaxweynaha dowladda federaalka soomaalina waa uga mahad celinayaa isagoo oo qiimaynaya soo jeedinta taliyaha ciidanka booliiska saddexdaas sarkaal inay u dallaceen min hal darajo oo ay noqdeen 3 jenaraal intaa waxaa dheer anigu madaxweynaha waa u sheegay waxaan ku yidhi sanad hore iyo sanadkii ku xigay iyo wax badan baa noogu kaa maqan wuxuu yidhi ba horta saddexdaas sii qaado intii kalena biblike ay ku jiraan iigu imow ma garateen marka insha allahu tacaala inta noo dhimanna dhowaan baan u geynayaa madaxweynaha marka aan kala shaandhayno laakiin saddexda tan waxay tusaale u yihiin in la og yahay oo madaxweynuhu og yahay oo anigu aan ogahay wasiirka amnigu og yahay qof waliba wuxuu qabto marka iyaguna waxay noqon doonaan oo hadda noogu soo xigi doona qaybta labaad oo aan dhowaan siduu iga ballan qaaday madaxweynuhu iyagana la soo saxiixi doona asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akademiyada